Videogan aad iyo aad buu u dhiirigelinayaa gabdho badan oo maanta sariiraha saaran. Anigana nafteyda dhiirigelin baa ka qaadaya. Videogan ila dhameysta. Anaaba nafteyda isku dhiirigelinaya. Iron oo saa dareemayo ma garanayo. Waa ujeedaan Najmo oo calooshii halkaa joogto oo jaamacadii joogto. Maalintan hadda gaariga aan saaranahay waxay ahayd maalin Ramadaan ah. Xaamilana waa ahaa. Oh my god, hadalka xitaa wuu dhibaay. Ma ogeyn waxaan ahaa gestational diabetic baan ahaa, laakiin wariska ma haynin. Xilligii glucose testiga reer Mareykanka waa taqaani waa dhaafay. Marka 3 bir kadib waa mari doonaa 3 bir kadib videogan waa mari doonaa oo waa ogaan doonaa. Marka iyada wax walba waa cunay, wax walba waa cabay, wariska ma haynin. Daal fara badan aan dareemay. Gaariga inta badan ma wadi jirin, uurka inta la 4 mar bismiya aba gaari kaxay 9 maadka dhanbo. So marka klaaska xataa markaa galo indhaha dhow waxaa dareemi jiray blurring inaan indhaha ina noqdaan aad dareemi jiray, weekend zaaid u dareemi jiray. So laakiin marxaladda ima istaajinin, klaasyadeedii kama tageen, ganacsigeygii kama istaagin, waxayga dhan waa watay anigoo marxaladaas ku jiro. Maanta marka uma maleynaya marxalad kale inay istaajin karto. Waa soo ogaaday inaan gestational diabetic qabo, waatana baasha isku baarayay. Kadib waxaa bilaabay inaan management gareeyo. Hadda quarterkii ayaa noo soo dhamaaday. Quarterka kale ma qaadanayo sababtoo ah xilligii dhalmada ayaa la gaaray. Waan isku diyaarinayaa meeshan aan ku fikrooyaa. Aniga dhow waa isbedelay, muuqayga waa bedelmay, jirkayga waa bedelmay. Xanuunka waxaa ku ray wareerka, hiraahirka, waxaa ku yiri ambulasta, waxaa ku emergency la ii geynayay. Subxaanallah, may dul qarnayn Ilaahay baariha iga dhigo. Ironkeygi low buu ahaa, waa la soo kicin waayay. Aniga dhan waxaa ku yiri nooc kala noqday. Haddii aan intaan baxo aan socdo oon soo yaro socdo, waxaa dhici jirtay guriga markaa ku soo noqdo qasab waxay ahaan jirtay inay ambulance imaato habeenkaas laga qaado guriga ay ahaan jirtay. Aad saas ay tahay haddana noloshayda marnaba ma joojinin, ganacsigeyga ma joojinin. Mar walba aan fadhiisto cashiradeyda, waxbarashadeyda, maalin aan joojiyay mala. Kulli waan wada watay. Hal maalin kama baaqanin. Waa xanuunsan tahay ma dhihin, iska dhaaf ma dhihin, never. Maanta meeshan hadda aan joogo waxaa ii bilaabatay marxalad kale, infusion iron baa ii bilowday. Ironkeyga waa la kicin waayay, kaniin walba la isiiyo meel levelka loogu talagalay waa imaan waay. Waxaa liigu bilaabay marka isbuuc oo infusion iron ah inaan tago 4 beri isbitaalka si aan usoo qaato ironkaas, infusionkaas. Waxaan joogi jiray 2 saac mayaan meeshaas joogi jiray si ma aragtay aan ironkeyga usoo qaato. Alxamdulillaah, wallaahi alcadiim videogan idinka kale dhiirigelin idima aha, aniga xataa dhiirigelin buu ii yahay. Waa ujeedaan waxaan aad iyo aad u jeclaa orange juice-ka. Saas ay tahay haddana waxaan ahaa gestational diabetic, waa iska ilaalin jiray. Maalintan waxay ahayd maalin aad iyo aad u yaab badan. Blood glucose-keyga high bay ahayd. Wax ma aragtay aan cuni karayna meesha ma yaalin. Kaajadana too much bay ii haysay. Maalintana waa maalin aan ballan ka lahaa dhakhtarka. Waa ujeedaan babyga aad iigu weynaaday, aad iyo aad buu iigu weynaaday. Dhakhtaradii way yaabtay, waxay tiri waa inaan ultrasound week walba ultrasound baa la saari jiray. Waa kana waxaa la yidhi maanta ma baxaysad, ultrasoundkaas baan ku saarayna ogaanayna 36 week baa maraya. Waxaa lagu dhahay markan iyada ah cunuga baamkiisa aad buu u weyn yahay, waa inaan aad iyo aad ula soconaa. Waa kan anigoo businesskeyga dhinac ka xayeysiinayo, barfoonkeyga raaliyo. Videoyin badan ayaa jirtaa idinkuguma soo darin. Maalintaas iyada ah oo dhakhtarada dhahayso 36 weegaas, wiigi ku xigay waa soo booqday dhakhtarka. Markaa imaaday 38 isbuuc baan ahaa. 38 isbuuc anigoo ah markaan imaaday, naagtii dhakhtarada waxay ugu tiri saaxiib waa ina babygan sida ugu dhaqsiyaha badan aan soo saarnaa. We have to babyga aad iyo aad u weynaaday. Waa kana waxaan joogaa qolkii lagu diyaarinayay qalinka. Waxaan kusoo ended up gareeyay C-section. Anigoo waatana waa la diyaariyay. Alxamdulillaah, ducada aan akhrisanay waxay ahayd yaa xayu yaa qayyuum biraxmatika astaqiif aslix lii sha'nii kullah walaa taklini ilaa nafsii darfata cayni. Qalinka intuu ka bilaabanay intuu ka dhamaanay subaxii oo dhan afkeyga ku hay
may dul qarneen wakaas isagoo caafimaad qabo anigiyo caafimaad qabo alxamdulillaah. intaasoo marxalad aan soo maray maalinna businesskayga ma istaagin, waxbarashadeydii ma istaagin, noloshaydii kala caadigana ma istaagin. waxaan ahay hooyo aad iyo aad u karti badan, gabar aad iyo aad u karti badan, hamigeena iyo hadafkeedana aad iyo aad mar walba uga mara dhaliso. hasdhihin ilmaa dhashay ama waa lagu qabaa, wax ma baran kartid, wax ma qabsan kartid, weliga allaa niyadaada iska dhaadhicinin. waa kana waxaa ku dhahay qolkii iska jiifaa beebigeyga wakaa maasha allah tabaarakallah. haddana waa kana haddana wataasaa ku dhahay quruxdaas iyo shacnigaas dhaxdi yareed noloshii wataasaa ku dhahay. soo marka hadda maanta nolol istaajin karta malaha ku dhahay. niyoteg maanta inaan cajisi karo, waxbarashadeeda ka cajisi karo, businesskayga ka cajisi karo, noloshayda kale ka cajisi karo, no way, there is no way bro, ma dhici kartaa ku dhahay. naftan yarta ah waa canaantaa. waxyaabaha aadka ii caawiyana waxaa ka mid ah tasbiixda iyo qur-aanka. mar alla markaan cajis dareemo ilaahay baa ku cararaa, qur-aankeyga akhristaa, waa iscilaajiyaa. maasha allah tabaarakallah. look at that, naagtaas quruxda badan dee waxaa ku dhahay maasha allah tabaarakallah. aakhirka dambe markaa dhalan waxaa noqday pre-diabetic, haddana pre-diabetic free baa iskaga ilaahay iga dhigay alxamdulilah. dee waxaa ku dhahay wakaas anigii hadda lugeen alxamdulilah. wallaahi alcadiim it was 9 months oo waxay aheedaa ku dhahay ilaahay nimcadiisa alxamdulilah, wax kaloo dhan ma garanayo. soo marka gabdho naftiina dhiirigeliya, naftiina dhiirigeliya. weligin alin intaa meel seexatiin waxaan ma sameyn karno hadhihina. daaris naajo maasha allah tabaarakallah. aad iyo aad aan salaamaya asxaabteyda qaaliga ah.